الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. marka koowaad waa idin salaamayaa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. ilaahi baana mahad iskale subxaanahu wa tacaala dhammaanteed. marka labaadna dhammaan rusushii ilaahay iyo nebiyadiisiiba ilaahay waxaan u weydiinaynaa naxariis iyo nabadgelyo gaar ahaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. intaas kadib kusoo dhowaada barnaamijkii aakhiru zamaan talks. hore waxaynu uga soo hadalnay bal waxyaalaha ay aaminsan yihiin yuhuuddu. bal lecturekan maanta insha allahu tacaala waxaan jecelahay inaynu isdul taagno bal waxyaalaha laga aaminsan yahay dalka hindiya, gaar ahaan waxay aaminsan yihiin dadka hinduismka aaminsan. diinta hinduismka waxay ku sheegayaan kuwa xag jirka ah ee iminka dalka la wareegay ee dadkana laga iibinayaa in uu jiro fikir la yidhaahdo dhul barakaysan. dhulkaa barakaysan waxay u qabaan nimankaasi in uu yahay dhammaan dhulkii ilaahyada ay sheegtaani ay mari jireen ama ay mareen. dhulkaas oo ay leeyihiin waqtiyada ka mid a annaga maamuli jirnay. dhulkaasna waxay leeyihiin waa dhulka bakistan iyo sri lanka, bangladesh, maldiviska iyo qaar kaloo badan iyo burmaba ay ka mid tahay. dhammaan dhulkaasoo dhan waxay ku taamayaan maalin in ay gacanta ku dhigaan. dadka saa ku taamayay waa kuwa aaminsan hinduismka, gaar ahaan dowladda hadda ma garanaysaay joogta ee ka talisa dalka hindiya. intaa markaynu haddaba ogsoonnahay waxay kaloo aaminsan yihiin dad la yidhaahdo brahmin in ay jiraan. dadkaasi inay yihiin jinsiyadda saxda ah ee asalka ah ee sharafta leh. dadka kaloo dhanna ay yihiin qaar ka kaca oo liita oo xayeysiis ah oo loogu talagalay in ay u adeegaan kuwa jinsigoogu sarreeyo ee ka soo jeeda jinsiga brahminka. intaa markaynu isla garannay waxaa kuu soo baxaya waxyaalo badan oo aynu kaga soo sheekaynay yuhuudda inay nimankanna aaminsan yihiin. number 1 oo waxay aaminsan yihiin wax la yidhaahdo casri dahabi. number 2 waxay aaminsan yihiin dadku inay kala sarreeyaan oo qaar ka mid a dadku inay yihiin xayeysiis, qaarna inay yihiin dad sharaf leh oo asala. waxay kaloo iska shabahaan oo aaminsan yihiin ma garanaysaay jiritaanka dhul barakaysan. waxay kaloo iska shabahaan dagaalka ay ugu jiraan in ay ku hantaan wakhtigii dahabigii iyo dhulkiiba. intaasba way iska shabahaan. kuwaasi waxay u eg tahay kuwii markaa uu ilaahay ina yidhi tashaabahat quluubuhum. dadka gaalada ayagoo wakhtiya kala duwan mararka qaarkood waxay la yimaadaan afkaar iyo ficilo iyo ma garanaysaay quluub isku mid ah, taas oo keenta in ay isku dembi iyo isku ciqaabba ay noqdaan. tani ayaa waxay caddaynaysaa nimankan hindida iyo nimankan yuhuuddu kuwooga xag jirka ah ee dowladahooga maamulaya inay aaminsan yihiin laba afkaarood oo aad iyo aad isku mid u ah. intaas haddaba waxaa dheer ma garanaysaay nimankan in ay ka dhaxayso xidhiidh aad u qoto dheer oo dhinaca dhaqankaa iyo dhinaca dhaqaalaha ah iyo dhinaca siyaasadeedba. marka laga yimaado dalalka reer galbeedka iyo ma garanaysaay maraykanka, dalka aad iyo aad ay xidhiidh dheer ula leedahay yuhuuddu waa dalka hindiya. xidhiidhkaa sababahay ula yeelatayna dhowr siyaabood baa keenaya. number 1 waa tan aynu sheegno, waa isku fikir. waa ma garanaysaay waa tii ilaahay in lahaa tashaabahat quluubuhum. waa isku ajande, meel bay u wada socdaan. ta kalena waxa weeye yuhuudda oo u isticmaalaysa nimanka xag jirka ah ee samaysay ee maanta ka taliya dalka hindiya in ay ku baabiiso dadka islaamka ah ee dhulkaa degan, gaar ahaan dalka bakistan. halkaas oo ay damacsan tahay haddii ma garanaysaay bakistan hindiya ay baabiiso oo nukliyeerka bakistaanna uu baaba'o, in ma garanaysaay yuhuuddu ay awood u helayso waxyaalo badan oo inay weli ku dhiiran caalamka islaamka inay ku dhiirato. intaa markaan haddaba isla soo ognahay sababtaynu u daraasaynay labadan gruub ayaa wuxuu yahay bal inaynu diiradda saarno xidhiidhkaa
ka dhaxeeya iyo sidoo kale inaynu diiradda saarno meelaha ay iskaga midka yihiin arrimaha markaynu diiradda saarnay in iminka sidaa u aragnay arrimaha haddaba markaynu diiradda saarnay eenu saa u aragnay ayaa waxaa kuu soo baxaya ilaahay subxaana wa tacaala maxaa yidhi baan isleenahay markaa ilaahay subxaana wa tacaala waxay ina leeyihin latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu alyuhuuda waaladiina ashrakuu waxaad arki doontaa ama arki dadka kuwa ma garanaysaa ee ugu cadaawadda badan kuwa ilaahay rumeeyey ee islaamka dhibi doona ee islaamka aadka u nacab leh ee cadaawadda ugu daran tusi doonaaye inay yihiin yahuudda iyo kuwii ma garanaysaa ilaahay u shariig yeelay waxaynu ka dharagsannahay oonu ogsoonnahay dalka hindiya in uu ka tirsan yahay waddamada farakutiriska ah ee weli caabuda sanabaanta kuwaas oo markaa qayb ka ah waaladiina ashrakuu caadi u soo gelaya halkaas mar kale ilaahay wuxuu inooga caddeeyey aakhiru samaanka inuu imanayo xidhiir ka dhexeeya yuhuudda iyo hindida cadaawadda ugu weynna ay ka iman doonto labadaa dal intaa haddaba markaynu isla ogsoonnahay aynu sidaa isla garannay insha allahu tacaala bal waxaynu taaban doonnaa sidaan hore idinku sheegay bal waxyaalaha kiristaanku ay aaminsan yihiin aayadihii kiristaanka ku soo degay iyagana waxyaalaha ina laga yidhi diinta islaamku waxaan qabaa aanan aaminsanahay siyaasadda caalamka inay aada uga sheekaysay halka siyaasadda diinta islaamku inay marto ama dadka islaamku ay maraanna in 1400 oo sano ka hor ilaahay uu sii dhigay oo la jideeyey dad badan baa yidhaahda diinta islaamku compatible lama aha caalamka oo siyaasadda ma soo gali karto aniga oo qabo fikirkaasi in uu qaldan yahay waayo waddadii inagu aan maraynay beri horaa inaloo jeexay waddadaas oo ah mid aanan ahayn inaan tooda raacno oo ku darsanno laakiin waddada saxda aan marayno beri horuu ilaahay inaga inoo sheegay haddii in uun wax ku falayaan oy qaadanayaan dadka u taliya ma garanaysaaye dalalka islaamka markaan intaa ka soo gudbo waxaan ka sheekayn doonaa saan idiin sheegay kiristaankana waxaan arrintaa badankeeda u dayn doonaa oon waraysan doonaa nin ma garanaysaaye diinta kiristaanka aada u aqaana oo sheekhda kiristaanka mid ka mid ah oo breacher ah una dhashay dalka gaana ayaan insha allahu tacaala aada iyo aada u waraysan doonaa wuxuu noqon doonaa barnaamijkaasi badankiisu ingiriis hase noqotee waan idiin fasili doonaa bal waxyaalaha aan isleenahay insha allahu tacaala kadibna waxaan ku soo noqon doonaa bal qur-aanku wuxuu ka qabo ma garanaysaay arrimahaas